nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof warwar iyo murug iyo dhibaato iyo xanuun uu ku imanayo oo ilaahay baryaya. allaahumma innii cabduk wabnu cabdika wabnu amatik. ilaahu anigu addoonkaagii baanahay, addoonkaaga inankiisii baanahay, addoontaada inankeedii baanahay. naasiyatii biyadik, fooddayda iyo naftaydu gacantaaday ku jirtaa. maadin fiya xukmuk, xukunkaagu waa igu fulayaa hadal la'aan. maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk, xuxi aad igu xukuntay qadahaaga ahna waa cadaalad wey. cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin laka, waxaan ilaah wax kugu weydiisanayaa magac kastoo aad leedahay oo magacyadaada ka mida. samayta bihi nafsak, magacaaga naftaada aad ku magacawday. aw anzaltahu fii kitaabik, ama kitaabkaaga aad ku soo dejisay gudihiisa. aw callamtahu axadan min khalqik, ama aad bartay cid khalqigaaga ka mid ah. aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak, ama aad ilaahow ku daysatay oo aanay cidi kula ogayn magacaad leedahay iyo tilmaanaad leedahay oo aanay cidi kula ogayn cilmigaaga qarsoon ee agtaada yaalla ku sugan. intaasan ilaahu wax kugu weydiisanayaa magaci aad leedahay. qur'aanka cadiimka ilaahu qalbigayga mid barwaaqo iyo hanuun iyo toosnaan u ziyaaday ilaahu ka dhig. ilaahu dhibaatada i haysa iga dulqaad, mushkiladda i haysata iyo walwalka iyo murugada ilaahayow iga dulqaad. hadduu dayn yahay ilaahu daynka iga bixi, hadduu yahay maxaan ku raahdaa xanuun ku hay ilaahu xanuunka iga dulqaad. haddii uu yahay ciriir ku haysta ilaahu ciriirka iga dulqaad. haddii gaaja jirto ilaahu gaajada iga dulqaad. hadday colaadi jirto ilaahu colaadda iga dulqaad. hadday abaari jirto ilaahu abaarta iga dulqaad. markaad ilaahay sidaa taar saxaabadu waa dhegaysanayaan rasuulku xadiidka u sheegaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh. markaasay tacajabeen oo xadiidkii la yaabeen. yaa rasuula allaahi yanbagii lana an natacallama haa'ulaa'i alkalimaat, rasuulka ilaahayo miyaanay habboonayn erayadan aad noo sheegtay qiimaha badan ee caqiidada ah inaannu baranno, miyaanay habboonayn? rasuulku wuxuu yidhi haa, qof kasta oo maqlaa waxaa habboon inuu xafido oo barto buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. suu ilaahay ugu barya subxaanahu wa tacaala.